loo sheergarayn okay xumaan uga bajeeyo gabadha ceeb ismidi oo walaashay waan u digayaa sababtoo khalad markuu ka dhacay maalinkii khalad ka dhacay intii caqabadka kiiri waan ogeyn dhibaatadii ka soo raacday waan ogeyn fool xumadii ka soo raacday waan ogeyn haddana waan u jeednaayo anigu buunbuuni iyo khaladaad sama maaha laakiin walaasha waa gabadh Soomaaliyeed waan u digayaa walaasha oo kala weeyay khaladka ka dhacay iyo macnaha wixii lagu sameeyay iyo anaa inuu gumeedka wato wixii uu ku sameeyna aad iyo aad baan wax ma waanan ka xanuunsaday haddana ma rabi inay dhibaato ku dhacdo laakiin waan uga digayaa fadlan waan uga digayaa wax dambe yaana arkay khaladaad dambe yaana arkay waxaan arkay maalinka hore indhaha naga wasaqaysay yaanan mar dambe arkay walaale ilaahay ka cabso kulli intaas waano walaaltinimo qofka ka naxay oo inta ku dhigi kara qofkii ku jecel oo walaaltinimada iyo xumaantada ka naxay inta ku dhigi kara inta ma gaar xumaanta dambe yaana arkay fadlan wax meelaha laba maran hayo mar dambe yaana okay inta ka soo gudub فيديو ما أنت قبله كود سابسين هاي شو عبد الله وأيضا واحد قاعدين سيد الله إيش قال لك مو فرنت هاي الحمد لله ما شاء الله استهتم وجدان لكن وحنا راه كويك كوفا ما شاء الله إلهي كسو عافية ولا لا هدي قاعدين إلهي كوب ودا كل واحد يشيل باقي ودا سوق الشيء ومعنا كل دمشق ما مجرته قف كستنا وحول سكيتشرا معنا قفلت بسكيتشرا هسي بلال سكريسنا سوشيال ميديا سكريتشرا xumaanta laga fogaado walaalayaal gabdhaha la hadlaya si goon ah oo hadlaya walaalihiyo ilaahay ka baqa gabdhaha waliba wax ka hadla waliba gabdhaha maanta qaflad bay ku wada jiraan kulligood wada ana wax in yar ilaahay u naxariistamayaan kulligood qaflad bay ku wada jiraan saas wada neekinayaan hees isku wada duubayaan horaadada war ilaahay ka baqa walaalayaal dhimashadu meel ma jirto bal hadda shushu Abdal oo maanta intii gaariga la dhacay la way dhimatay ilaahay ilaa dhimashadu meel ma jirtay dhimashadu meel ma jirto qofka ilaahay baa keensaday ilaahay baa oo yaa qaadan kara sumuu waxa adigu meel keensato haddana waa qaadan kartaa adaa xor u leh waqtiga doon ka qaadan kartaa marka ilaahay xor bunooye ana waqti doono la qaadan karaa waqti la qaadan doon ilaahay baa marka bal maanta shushu Abdallah maxay ka dhiman lahayd ilaahay baa ku dhaarshay heesta iyo muusiga markii la dhaho shushu Abdallah wax gaaray heestaadii muusigadii wixii ay isku duuduubtay oo dhan baa social media saa loo daamin lahaa marka maxaa la oo ka tagtay waa su'aal maxay ka tagtay waxay ka tagtay ayadoo isku haysa bay ka tagtay dambigeeduna inta uu socon lahaa umrigeeda marka fiidiyowgana bal inta san ayadoo ugu talagalo waane walaashaan bal gaarsiiya bari xisaab baa jirta maanta adduunyada haddaad joogtid oo qaflad ku jirtid kulli bari way iloosantahay laakiin mar aan maanta ahayn baad xasuusan doontaa bari wax ay tahay iyo xisaabta jirta iyo sida xaaladdu tahay kaligeedna maaha ee waxaan la hadlayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan kuwa maanta malaayiinta followers haysta 24 saac maalin kasta 10 fiidiyoo ee heesaha isku raaxayo raadada la raaxay soo galiya maanta dhimashadu meel ma jirtay kuwa haddii ilaahay qaato walaalayaal bal maxay ka dhiman doonaa maxay ka tageen ya maalinka yawm alqiyaama lis cadaabayo qaarna jannada la dareerayo qaarna naarta la geenayo dadkaasu maxay sameyn doonaa ma aakhirina ka warqabino ma maanta maalin aan ahayn bay wax ogaan doonaa mise qalbiga qadiidooda oo qalbiga wada dhagax oo bari bayna ka warqabin oo adduunyada bis u jeedaan oo waxay moodayaan weligood inay noolaan doonaan anigu saas taasay weligood inay noolaan doonaan bas Soomaaliya laakiin ma noolaan doonaan wada qalfad bay ku jiraan xilli ilaahay doono ku qaadan doonaa markii lagu qaato maxaad ka tagtay akoonkaaga hisaab ku jira ee taas wada walaaqaysa social media lagu faafini hebel way dhimatay baa la dhig kadib waa iska ka daawanay iska bulo dhaqo iska fiirsani dambigaaguna wuu soconi aakhirana wal cadaab xaa faa'iido keentay
intaas waa iga talo waa iga waano gabdhaha ku socotaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.